بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام فيقرأ في الأولى بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بأم القرآن وقل هو الله أحد. إذا فرغ hadduu dhammaysto طawaafkii u dhammaaday, طawaafkii kacbada la dawaafee u dhammaaday, sallaa rakcatayni buu dukadaa. muxuu ku dukadaa? khalfa maqaami ay maqaami ibraahim, waاtakhiduu min maqaami ibraahiima musallan. iyadoo aayaddaas la fulinaya towjiihaadkeeda yuu maqaami ibraahim gadaashiisa aaday. maqaamu ibraahim waa dhismo yar oo adiga dhirkaada wax yarkaa dheer oo xajar al aswad markii la dhaafo iyuu meesheeda ku yaalaa. marka calaamay ahayd fiihi aayaatu bayinaatu maqaamu ibraahim. ilaahay wuxuu baaqi yeelay nabiyullaahi ibraahim markuu beytka dhisayay, meeshuu ku istaagay lugihiisii yaa cagtiisa ku masawirantay. marka ilaa waqti nabiy sala allahu alayh wasalam iyo wixii ka dambeeya waqtiyaal badan waa soo gaartay, waa mucjizay ahayd. markii dambe oo adiga duruufo iyo dagaalo iyo maxaan ku yidhahdaa daadad iyo wixii waa baabi'een. waxaa la sameeyey marka mujasamaa lasoo qaatay oo wixii awal meesha ku ooli jiray wax u eg siday dadka ku xasuustaan ayaa lagu sameeyey. ee hadda raadka meesha ku yaala kii ibraahim ma ah, laakiin waqti badan buu jiri jiro dadka muslimiinta ay wada arki jireen. marka tiibaa hadda loo jeedaa. marka maqaamkaas meesha ku dhisan dabcan waqti alxaji iyo waqtiga cumrada ramadaanka waa adag tahay inaad gadaashiisa oo mubaasharatan ku dukatid. waad ku qasban tahay markaad gadaashiisa gaartid ood ogaatid dhulkaanan cariiri inuu yahay inaad dib u baxdid meesha maxaan ku irahdaa ugu dambeyso oo lagu duka karaa tegaysaa. maadaama uu maqaami ibraahim adiga iyo kacbada u idiin dhexeeya, khalfi ibraahim maqaami ibraahim waad ku dukatay, ama ka fogow ama u dhowow, weliba meel oo salaadii aad khushuuci kartid yaa la rabaa in lagu dukado. dadaa waxay isku dayayaan waqtiga sidaas u yaallo oo cariirigaa lagu jiro yay isku dayayaan inay khalfa maqaami ibraahim ku dukadaan. marka waxaa u imaanaya hirir badan oo dad ah, ninkii dukanaya waaba la qaadaabo ama waa lagugu dul soconaa. marka caqli iyo mantiq ma keeni karto inaad naftaada aad dhib u keentid, ummadina cariiri ku abuurtid. waa in la fahmaa, gadaal u deg, meeshaas ku duko. ayib, markaa wuxuu akrinaya ragcada hore umilqur'aan oo faatixada iyo qul yaa ayuha alkaafiruun. midda labaadna iyadana sidaas oo kale qul huwa allaahu ayuu ku bedelaa. marka intaas waxa weeyaan waa sunno. salaadaasna waa la fududaynaa. hadhihin maqaamu ibraahim baan sujuudsanahayo waxaan rabaa kullu maa yahumunii fi dunya waalaakhira inaan meesha ku ducaysta hadhihin. huma yacuudu ila alxajari fayastalimuhu. marka tawaafkii u dhammaysto uu haddana ibraahim ku dukada meeshiisa khalfi ibraahim. yani khalfi ibraahim looma dukadee macnaha gadaashiisa lagu dukadaa, kacbadana loo jeestaa. marka xajarkiiba u laabanaya fayastalimuhu, waa istilaama. istilaamka hadduu ku suurageli kara inaad soo dhunkootid ama wixii gacantii ama ushii aad wadatay. intaas markuu kuu dhammaado, huma yakhruju min baabi safaa. waxaa ka horeeya maa u zamzam buu markaa cabaya. ceelkana meeshuu ku ooli jiray. markaa hadda waxaa bedelaya biyihii meel kastaa la dhigay. meel biyahaas ay yaalin aad raadinay, biyihii waad cabaysaa. maa u zamzam limaa shuriba lahu baa nabiga calayh salaatu salaam yiri. waxaa kaloo uu yiri biyo mubaarak weeyaan, طacaamu طucmin wa shifaau suqmin. raashinna way noqdaan, maxaan ku irahdaa caafimaadna waa laga helaa. marka ninka intuu cabi kara inuu cabo way fiican tahay. biyahaas sidaasaa loo cabaya. waa nabigaas calayhi salaatu wasalaam sidaas sameeyey. ulajeedadeedina ma aha dadka hadda siday leeyihiin qof kastaba iimaankiisuu ku cabaa baa laleeyahay.
qofka inuu muraadkiisa biyaha ku gaaro iimaankiisa ictiqaadka biyaha uu ka aaminsan yahay ku xiran tahay. haddii laakiin qofkii ouba biyi ka ashashayo ousan waxba inay taraayeen ousan aaminen waa la sameeye iska sameeye waxay ku taraayaan lama arko. laakiin biyaha zamzam inay yihiin caafimaad yihiin, haddii aad caafimaad u cabtidna waa helay, haddaad xoolo inaad heshid u cabtid waa helay, haddaad cilmi inaad baratid u heltid waa helay. wixii ilaahay ka niyeysatid ilaahay waa ku siinaa biyaha markaad cabaysid. laakiin iimaankaada biyaha aad rumaysan tahay iyo axaadiidaada aad rumaysan tahay ku xiran tahay. dad badanna waxay aaminsan yihiin nin kastaba intuu biyahaas ka cabid badan yahay uu kan kale ka iimaan badan yahay. saas ma aha. nabiga waxaa ka soo aroortay ninka mu'minka yatadallacu bimaai zamzam, macnaa calooshiisa uu ka buuxsadaa, feerahay uu buuxinaa. tadaluca waxaa la yidhahdaa markii xoolaha biyahay cabaan kilyahooda dhan indhakana waa soo wada baxayaan. taas waa loo baahanya. laakiin tadaluca ma aha bimuqaarata gayrika ma aha. adiga intii oo dharag ku ah, nin koobka xagga ma cabi kara, nin nus liitra u cabi karaa. haddaad nus liitra ka cabtid calooshaada buuxsan tadaluci waa samaysay. ma aha inaad fulaan wuxuu cabay adi laguu fiiri. dadka isku cunta ma aha, isku cabid ma aha, isku awood ma aha. ninba tabartiisa u cabaya. muqaarana wax la yihahda ma jirto. ثuma yakhruju min baabi safa, marka baabu safa buu ka baxayaa. dee wuxuu ka hadlayaa dhismadii waqtigiisa jirtay. hadda wax baabu safa la yihaaho xaramka ku dhex yaalo oo loo maraa safo la aadaya ma jirto. fa yarqaa calayhaa, markaasuu fuulaa safo, fa yukabiru wa yuhalilu wa yadcu allaha fi ma bayna dalika bima axaba min diinin wa dunya. markuu safo kor istaago waa takbiirsanaa, waa tahliil, takbiir allahu akbar, tahliilna laa ilaaha ila allah. wuxuu ku ducaystaa inta u dhexaysanay wuxuu jecel yahay adduuni iyo aakhirabo. marka meeshaa nebigu waxaa la yidhi aad buu uga dheeraaday. laa ilaaha ila allah waxdahu nasara cabdahu acaza jundahu hazama alaxzaaba waxdahu. ducadaas dheer uu ka bilaabay, wax badan oo akhriyay. marka adiga ducadii aad kari kartid ku ducayso. ثuma yanzilu fa yamshi, marka wuxuu bilaabaa sacyiga u bilowday. safuu ka bilaaba. nabda'u bima bada'a allahu bihi buu nebigu yiri. ilaahay wuxuu ka bilaabay lannu safaa la hormari. ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illah. fayamshi xataa idaa kaana duuna almeyli alakhdar, intuusan gaarin meylka akhdarka almucallaq fi rukni lmasjidi binaxwin min 6 adrucin, intaan la gaarin intay lix xusulkaaga dhiman tahay yuusacaa sacyan shadiidan. hadda waxaan uu musanifka sheegaa meyl akhdar iyo mucallaq fi rukni lmasjid ma jiraan. waxa weeyaan sidaad meesha ugu dawaafaysid waxaad arkaysaa calaamooyin cagcagaaran oo kor iyo jidaarka iyo kulli lagu sameey. meeshaas marka waad fiirsanay, markaad cagaarkii aragtid waxaad ogaanaysaa meeshii orodkaad gaartay. markaa sacyan shadiidan xataa yuxaadi lmiilayni alakdarayni alladayni bifanaa'i lmasjidi wa daari alcabaas. waxa weeyaan orodkii waa wadayaa ilaa haddana labada miil oo gedgaduudan. waxa weeyaan labada gees oo meesha lagu sacyina meel keliya hadeertan 3 dabaqaa la maraa. waagii hore hal meelaa lagu sacyi jiray, 2 calaamo oo derbiyaasha geeskaada ka taagtaagan oo cagaaranaa jirto. haddaad soo gaartidna waa gashay, haddaad gaartidna waa ka baxday. labadaas calaamo inta 2 tiir camal iska soo qaado oo mid kastaba ay macnaha khad cagaaran ay leedahay. dadka sida loo baro meesha in lagu saxiyo ay tahay. taasna waxay ku timiday markii haajir wiilkeedii ismaaciil inta meelshaas dhigtay safa iyay markaa waxay ordaysay maa bayna safa walmarwa. inta ay wiilkeeda u muuqato, intuu wiilkeeda u muuqdo, markii safa ka tagto waxa waay dhul isla siman ay ku socotaa, wiilkeeda waa u jeedaa. markii waadiga hoose gasho yay ordaysay. waxay u orday wiilkii markaa ma aragto. markii dalcaddii karo istaagtay wiilkeedii aragtana way soconaysay. marka taariikhdaasaa lagu xasuusinayaa. ilaahay baa cibaado ka dhigay. ayib xataa yuxaadi lmiilayn akhdarayn bifanaa ilmasjid wa daari alcabaas. ثuma yamshi xataa yarqaa cala almarwa, intuu marwa adana ka fuulo.
fayasnacu calayha mar wuxuu ku samaynaa kamaa saana cala safaa ducadii dheereeduu safo ku soo akhriyay yuu marwana ku akhrinaya hadda meel yaroo xoogaa dadka markii ay marwa ay gaaraan intayna soo laabanin meel aad xoogaa ku istaagi kartid aa jirto oo aan sacyiga ku jirin aa loo sameey marka meeshaas haddaa istaagtay oo ducaysad kadib haddana aad ku soo laabatid waa heli karta xataa yutima 7 todobadaas joor uu dhammaystiraya yabda'u bisafaa wa yakhtimu bilmarwa waxaan idhi haddii aad safo ka tagtod marwo tagtid kow baa laleeyahay marwo haddaad ka tagtoo safo soo noqotidna 2 waa laakiin la dhihi maayo min safa laga bilaabo ilaa safo kale looga soo noqdo labadaas waa isku hal xaba lama dhahay marka dadaa waxaa waa 14 joor iyay marayaan bayna asafa waalmarwa waa khalad weeyaan wa in kaana muctamiran haddii uu yahay mid cumraysanayo oo wa kaana macahu asigana ay la socdaan hadyun naxara wa xalaqa ow qasara markii aad tawaafkii waa dhammaysay caygana waa dhammaysay haddaad hadyi wadid waa gowraci markaad gowracdidne madaxii aad xiirani cumradiina waaba kuu dhammaatay waalxalqu afdalu waqad faraqa min alcumrati buuri cumradii waaba u dhammaatay cumradii miiqaadkii oo laga xarmado beytkii oo la tawaafo sacyi bayna safa waalmarwa haddaad hadyi wadatid la gowraca haddii kalena madaxa aad xiiratid waaba dhammaatay waa intaa kale ama aad gaabsad walaa yaqطacu almuctamiru talbiyata fi lcumrati xataa yaftatixa atawaafa mustaliman aw gayra mustalimin marka talbiyada waan ogaana waxay kasoo bilaabatay markii aad xarmatay cumradii ayay bilaabatay waa wadaysaa xataa yaftatixa atawaafa tawaafka intuu ka bilaabo mustaliman asoo xajar alaswadkii maxaan ku iraahdaa dhunkoonaya ama gacanta ku qabsanaya aw gayra mustalima hadday u suurogeli waysa xataa mar haddaad xajar alaswad timaadid oo aad tawaafkii inaad bilaawdid aad rabtid khalaas talbiyadii waa joogsanay marka ducadii kale wixii kale aad bilaabay wa hada qowl ibnu cabaas qowl ibnu cabaas keligiis ma ahana waa qowl ljumhuur waay ayib wuxuu iri walaysa cala الnisaa'i xalqun walaakin yuqasirna walaysa cala الnisaa'i xalqun dumarkii madaxa inay xiirtaan ma laha walaakin yuqasirna inta yar intay tinteeda isku soo aruuriso yaa madaxa hore ay ka jaraysaa liannahu dumarka hadday xiirtaan waa qaab darnaanayaan wa in kaana xaajan haddana waxa weeyaan wixii xataa laga diiday ayagoo cumro iyo ayagoo nugsug samaynaya wixii laga diiday yaa mawda loo samaynayo gabadhi hadda madaxii mululufay basiinayba iyadoo madaxa aad yaabaysid inay maxaan ku iraahdaa dhul banaan ay tahay kusoo galaysaa dadka aan diinta lahayn wa in kaana xaajan aw qaarinan ajza'ahu tawaafun waaxidu lixajihi wa cumratihi hadduu markuu soo galayay xajkii cumradii xariiro labeyka xajan wa cumratan ou yiraahdo waxa weeyaan hal tawaaf iyo hal sacyaa kugu filan maxaa yeelay ninka qaarinka ah iyo ninka xajka mufridka waa isku mid waaye niyada unbay ku kala duwan yihiin liqowlihi salى اllahu عalيه wasalam licaaisha wa kaanat qaarina tawaafuki yani bilbeyti yakfiiki lixajiki wa cumratiki saasuu yiri nebigu wuxuu iri haddii adiga aad tawaafkaada xajka aad u tawaaftay iyo cumradeedii tawaafkaas waa kugu filan yahay wuxuu kaaga filan yahay xajkii cumradii oo iswato lama dhahay qofkan qaarinka maadaama lama camal u niyeystay tawaafkoona xajka ha noqdo ku kalena ha la yimaado cumradii sacyi bayna safa mid ha la yimaado xajka mid kale cumro lama dhahay غayra ana cala alqaarini waxaa ku waajibe alhadya waa liqiraanihi hadyaa laga rabaa hadyi lqiraan liannahu juzء min atamatuc waay hadyigaas laga rabo neef inuu gowraco ari aragta macnaheedii ma aha
inuu yani mukhaalafa sameey ma aha oo qiraanka mukhaalafa ma aha laakiin waa damu shukraan oo ilaahay baad ku mahad celinaysaa inuu laba camal uu kaa aqbalay fi suurati camal waaxid wa yuqiimu calaa ixraamihi qofka mar hadduu qaarin yahay ma xalaaloobayo xataa yutima xajahu maca imaamihi ilaa xajka uu ka dhamaado maalinka tobanaad yabqa cala alixraam laakiin ninka tamatuca cumrada hormariyo yaa xalaal noqon karo oo muddo joogaya kadib xajka bilaabay wayakhtubu alimaamu yowma asaabici min dilxijati bacda duhri bimakkata imaamkii dadka uu khudbaynaa maalinka todobaad oo bisha dilxija ka mid ee bisha islaamka waa 12 bacda duhri bimakkata uu dadka ugu khudbaynaa dadka marka yowma saabic maxay joogaan makaan la joogaa waya'muruhum bilguduwi ilaa minan in biri loo baxa maalinka sideedaad in mina loo baxayo ou amraya liyuwaafuu adduhra biminan say minan ugu dukadaan duhurka maalinka sideedaad fayusallii biha alimaamu duhra waalcasra waalmagriba wa cishaai alaakhirati wasubxa min alghad sidaad maalinka yowmu tarwiya layidhaha maalinka sideedaad tarwiya dadka biyahay qaada jireen leanno dhulkan lama deganaa jirin markaas siday makay biyo ka qaadanayaan siday mina habeen ugu baryaan maalinteeda carafa ay aadaan haddana ay soo laabtaan habeen ku xigay musdelifa baryaan haddana mina ay yimaadaan intaas wixii ku filnay meesha ka qaada jireen ayib wayuqiimu calaa waa ninkaas saas waay marka wuxuu maalinka sideedaad bariisadeeda soo u taga sida subaxii oo markii qoraxda soo baxduu maka ka tagayaa mina buu degayaa mina duhurka maalinkaas sideedaad duhurkuu ku dukanaa casirkuu ku dukanaa maqribkuu ku dukanaa cishaau ku dukanaa subaxa sagaalaadna waa ku dukanaa habeenkii waa baryey subaxa sagaalaad salaada subxeedna waa ku dukanay markay intaas u dhammaato thuma yaqduu idaa talacat ishamsu maalinkaas mina in la baryaahu waa fiican tahay laakiin rukni ma aha waajibaadna ma aha maalinka sideedaad habeenka oo maxaan ku yiri maalinka sideedaad inaad joogtid mina oo habeenka sagaalaad aad baridid waa fiican tahay wa kaana hada hadya الnabiy sala allahu alayh wasalam laakiin waajib ama rukni ma aha ثuma yaqduu idaa طalacat الshamsu ilaa carafata yowma ataasic maalinka sagaalaad qoraxdeeda markay soo baxdo markaasaa waxaa la aadaa carafo waa maalinka ugu qiimo badan waay wa huwa calaa talbiyatihi asoo labeyk allaahuma labeykadiisa wato yuu tagayaa faidaa zaalat ishamsu marka faidaa zaalat ishamsu subixi baad baxday markii 1 saac oo kalaad baxday ama 7 sidaad u taqaanid waxaad iska degay meelaha carafo u dhadhow oo geedaha le iyo waxaasaad iska degi kartaa markii faidaa zaalat ishamsu markii shamsada zuusho macnaha waxa weeyaan markuu duhurkii galo sacida alimaamu imaamkii marka waa wixii loo dhigo mimbar abuu istaagaa fajalasa cala almimbari fakhataba alkhudbata aluulaa khudbada hore yuu akhriyaa faidaa jalasa midda hore hadduu dhameeyo akhada almu'adinuuna fi ladaan khudbada horo iyo khudbada labaad aadaana u dhexeey wa akhada huwa fi lkalaami aadaanka labaad markuu bilaabo inuu akhriyo ninka u bilaabo imaamkina khudbadii labaad uu bilaaba asigane wa khafafa alkalaama alaakhir khudbada labaad kalaamka ku jira waa yaraynaya xataa yanzila intuu ka soo dego biqadri faraaqi almu'adini min alaadaan aadaankii oo dhacayay yuu khudbada labaad la bilaabaya waxaa isla dhammaanaya ninka mu'adinka aadaankiisa iyo khudbadii labaadaa isla dhammaanayso ayib marka hakada imaamu shaafici sidaasna kutub badan ay ku qoranta laakiin hadda sida sawaabka waxa weeyaan waa la aadaama kadib uu imaamka khudbada labadii khudbo yuu akhrinaya ma hal khudba mase waa 2 khudbo jumhuurta 2 khudbo ay qabaan aan la akhrinaya labadaas khudbo waa la fududaynaa midda dambo waa run laakiin dadka wuxuu barayaa
maalinta yowma naxri maalinta ugu dareent hadda waxaa weeyaan siyaasa caamaa laga hadlaya wa yuqiimu lmu'adinu markii uu imaamkii khudbada dhameeyo wuxuu leeyahay yuqiimu lmu'adinu mu'adinka salaadii wuu iqaamaya wa yusali duhra huma yuqiimu fayusali alcasra waa sax waay yajmacu bayna alcasri waduhri jamca taqdiim casrkaa lasoo qaada duhurkaa la keena midna laba ragca laga dukana marka aljamcu waalqasru wa jamcu taqdiimaa la kulminaya walaa yajharu bilqiraa'ati qiraa'ada lama jahraayo salaadaas oo khudbada maalinta carafa ibn lmundir wuxuu iri ajmaca alculamaau calaa ana alqiraa'ata fi khudbati fi salaati yowmi carafa duhran annahaa siriya huma yarkabu marka qofkii waa baxayaa fayaruuxu wuxuu aadaya ila almowqifi cinda asakharaat meeshaan uu imaamka khudbada ku akrinaya hadda masjidaa laga dhisay masjidkaas qaarna carafou kaga jiraa qaarna minow kaga jiraa maxaan dhihi lahay carafa khaarijkeeda mina ma ah carafa khaarijkeeda liannahu musdelifa iyo mina ma xariiraan dhula u dhexeeya baynamaa musdelifa iyo mina way xariiraan wax u dhexeeya ma jirto marka masjidkaas iyo meeshuu jumca ku dukaday salaadii way ka dhaqaaqaan oo dhulkii mowqifkii carafayay aadaan buu leeyahy cinda sakharaat sakharaat waxaa waa buurta yaryar oo carafa ku dhex taalo ood aragteenoo dadka ay isku soo masawiraan ay isku cariirinayaan hadda iscaafaada baa la geeyaa dadaa intay fuulaan isku cariiriyaanay soo daadanayaan qaaraa qoraxda intay ku dhacdo iyo waxawaaye darabaad shamsiya intay ku dhacday wada ay muqmaa noqonayaan isbitaalada loo soo qaadaya marka waxaa fiican nebigu wuxuu iri waqaftu haahuna wa carafatu kuluhaa mowqif qofka inuu isku adkeeyo maa dhul dhan waa carafa ban carafaa la yidhaahbo meel kamid a haddaad heshid oo aad huduu ku heshood ilaahay ku caabudid way ka fiican tahay meel yaroo nebiga meesha u istaagaa inaad tiraahdo oo maanta oo dhan taalic naasil aad ku jirtid kulayl cariiri dhib maxaad cibaadaysataabo adiga dhan waxaad noqotayba nin mashquul ahaad noqotay taas lama rabo sideedaba cibaadada khushuuca waxa kuu keena waxa kale waa ka horeeyaan alfadiilatu almutacaliqatu bidaati alcibaada muqadama cala alfadiila almutacaliqa bizamani wa makaaniha meeshaan fiican inaad istaagtid hadday ka hor imaanay khushuuca inaad waanaysid meel kaloo ka fogood khushuuc ku helaysaad aadaysa ayib huma yastaqbilu alqiblata biducaa markii ay salaadii laga baxo oo carafa la aado ducaa la bilaabaya ducadaas waxaa weeyaan min azawaal laga bilaabo ilaa guruubi shamsi 6 saac oo dhan qofkii inuu ducaystaa la rabaa ilaahay wuxuu ku leeyahy bari waxaad rabtana waa ku siinaa allahu yubaahi bika almalaa'ika maalinka carafa ah waa maalin oo aan caadi ahayn waay marka nebiga iyo saxaabadiisa alla baryaday bilaabaan markay duhurkii dukadeen ilaa maqribkii laga gaaro nin wax kale isku mashquuliya lama arko liannahu ninka haddii qalbigiisa uu dareemi kara mowqifka maanta uu joogo iyo waxa uu ka helayo fadli ah dhibkaa naftiisa maba dareemayo waaba taagan yahay nebiga waxaa weeye neefuu ayuu kor fadhiya geel ah dad kastana nin taagan nin maxaan ku idhaahdaa faras watow ninba wuxuu heli karayuu ku istaaga adi haddaad gaarigaada ku istaagta xataa dhib ma lah waxayثumaa waqafa annaasu min carafata ajza'ahum lianna الnabiy sala allahu alayh wasalama qaala mowqifun wa kulu carafata mowqif haadaa mowqifii wa kulu carafata mowqif waqaftu haahunaa wa kulu carafa mowqif buu nabiga yiri marka meeshaasaad istaagaysaa meel fiican oo qalbigaada soo xasili karo oo mashquul iyo balaayo ayna jirin meel oo raashin lagu qeybinayo ama meel oo kaniif lagu galayo oo kale ha isku tegino buuqa aan laga goyn waxa tiri aad maqlaynin dhulka waa weyn yahay tartiib adiga iyo rufqadaada raadsada
meel yar oo aad ilaahay ku bari kartaan oon cariiri lahayn raadsada waa meesha ugu cariiri badan waa carafo طيب قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا الربيع قال سمعت الشافعي يقول عرفة كل سهل وجبل أقبل على الموقف فيما بين التلعة التي تقضي إلى طريق النعمان وإلى حسين وما أقبل من كبكب إلى آخره إمام الشافعي وانين مكاوي عمنين مكي أواي marka dhulkaas waa dhulkuu ku barbaaray saxiix ghazow ku dhashay soo yaraa la keenay marka dhulkaas wuxuu u yaqaanaa xajar xajar marka waqtigiisii wixii macaalim jiray oo carafa looga aqooni jiray waxa kale yuu noo akhrinayaa wuxuu uri kullu sahlin wa jabalin aqbala cala almowqifi carafatu carafa waxaa la yidhaha kullu sahlin wa jabalin meel hoos iyo meel dhagax oo saro meel hoos iyo meel buur ah aqbala cala almowqifi oo mowqifka ku soo aadan fii maa bayna talca meesha talcada waa buurta yar alatii tufdii ilaa طariiqi nucmaan wa ilaa xuseyn intii laga gaaro meesha la yidhaahda iyo wamaa aqbala min kabkab intaasaa mowqif ah marka waxyaalaha hadda fiqiga tajdiidka ugu baahan yahay ku jirtaa hadda waa dowlad baa timiday iyadoo la tixraacaya culammadii islaamka ahay markii ay mino xadideen ay musdalifa xadideen calaamaadkii ay ka sheegaan alla qaata calaamo waaweyn oo looxyaal ah lagu dhejiyey sidii markii aad adiga aad jidadka socotid baa boorarka aad arkaysid oo kalea ku dhegan hunaa bidaayatu musdalifa hunaa bidaayatu carafa hunaa nihaayata carafa afarta gees waa laga calaameeyey maanta marka waxa calaamadii magaceediyaa ku qoran luqaadkiyaa lagu wada qoray alxamdu lilah marka talca iyo xusein iyo ma naqaan hadirtaan annaga amaakin waqtigiisa jirtay waay ayib wa uxibu lilxaaji waxaan u jeclahay ninka xaajigoon u sunaynaa tarka sawmi yowmi carafa inuusan soomin lianna nabiy sal allahu alayh wasalam lam yasumhu hada saxiix nebiga ma soomin markii lagu shakiyey baa biyo loo diray nebigana waa cabay marka sababta maxay tahay wa araa annahu aqwaa lilmuftiri cala adducaa'i waxaa weeyaan in waxa loo anfuraa waxa waaye inadan ducadii ka daciifin nin oo dhibkaas iyo kulaylka uu haysto hadduu soonku sii daro waxaa laga yaabaa inuusan allaba beryi karin oo meel iska yaallo marka taasaa lagu diidayaa buuri wa afdalu ducaa'i yowma carafa weeyaan ducaba ilaahay la barya carafo wax ugu dhow ma jirto fa idaa qarabat ishamsu dacafaca alimaamu wa calayhi alwaqaaru wasakiinatu fa in wajada furjatan asraca qoraxda hadday dhacdo oo mugdi la gaaro lama rabo maalintiio wax ka dhiman inaad carafo ka soo degtid lama rabo juz min annahaari yowma taasic wa juz min leylati alcaashiri min dilxija aa la rabaa carafo inaad kulansatid shardi ma aha jamcintooda juz ka mid waa kugu filan yahay laakiin sida sunnada ah laga hadlaya marka imaamkii dadka haystay marka dafac alimaam ka hor in la baxa ma ah dadkii maadaama hadda aan la keri karin aan la sameeyey shurtaa loo dhigay dadaaba haddii shibligiina casirka iska soo baxayaaba jiro dadki isku madahab ma aha dadaa jira markii dadka ay soo wada baxaan meesha gogol in dhigta iskaba jiifanayabo oo calaa kayfahu war waxaan waa mashaacir mid kastana meel bay leedahay waktina way leedahay calaa ra'sika ha ka dhaqaaqine waxaa la rabaa inaad samaysid sida sunnada iyo sharciga ku waafaqsan yahay marka dadaa laga soo bixinaa habeenka musdalifa intay iska jiiftaana laga soo bixinaa ayib markaasuu uri wa calayhi alwaqaaru wasakiina dadaa markii waa la fasaxay waa la qaylinaa inta kasaga inta lama rabo waxaa la rabaa cibaadadii aad ku dhex jirtay inaadan iloobin oo talbiyadaadii waxaadi aad wadatidaa lagaa rabaa ayib fa in wajada furjatan meel bannaan hadduu helana asraca socodkii waa dadejinaya nebiga saasuu ahaa hashiisa intuu u qabto hogaanka yuu madaxeeda gadaal u soo celi jiray sayna dadka u dardarin ayna u maadhaafin markuu
waxeela meel bannaanne hogaankii u dabci jiray markaasay dhaqaaqi jirtay sidaasaad samaynaysaa waxaa la diidaa maalintaas inaad dadka oo dhan baa wada socda meel lagu socdo hataa marka qaarkeed lama helaye inaad dadkii iska dul martidaa la diidaa sharci ahaan oo meeshii adiga wanaag lagaa rabay dad muslimiin ah fi tilka alawqaati alfaadila aad dhib u soo jiidid taasaa la diidaya marka qofka waxaa la rabaa inuu isxakameeyo sida ugu wanaagsan suu cibaadadiisa u qabsadaa la doonaya فإذا أتى المزدلفة جمع مع الإمام المغرب والعشاء بإقامتين إلى آخره ما شاءنا كجوجنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين